بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأدرسي كوبنا الددوينها بشهر رمضان لحريري ولا ليال حيالها آد لو باهن يهي إنaynu badino waxaa ka mid ah adducaa tuugmada rabbi ilaahay aan baryayna subxaanahu wa tacaala. qaala allahu tacaala waidaa saalaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaanii. waxa weeyaan ilaahay wuxuu leeyahay addoommadaydu haddii ay kaa weydiiyaan nabiyullaahi moxamed calayhi asalaatu wassalaam fa innii qariibun, anuu mid u dhow baan ahay, ujiibu dacwata addaaci idaa dacaani, midka i baryayana baryadiisaan yeelaayoo aqbalaa waan aqbalayaa. falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii lacallahum yarshuduun. waxaa laga doonayaa addoommadii inay ilaahay ajiibaan, inay rumeeyaan si loo hanuuniyo. marka waxa weeyaan ducada way cajab badan tahay, way fadli badan tahay. ducada ilaahay baa aqbalaya subxaanahu wa tacaala haddii aada ula timaadid sidii loo jireeyey oo loogu talagalay. waxa weeyaan ducadu waa ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan, waa khabar min allah, waa war xag rabbi ka yimid, lama nasakhayo war khabarka lama nasakho. haddii ay ajiibidii iyo wixii adigu aa raadinaysay ay kaa dib dhacaanna waxa weeyaan kolleyba meel baa lagugu bedelaya. markaas nabigu waa isaga yidhi sala allahu calayhi wasalam, man futixa lahu baabu ducaa, qofkii loo furo albaabka ducada, futixat lahu abwaabu lijaaba, waxaa loo furay albaabada aqbalidda ayaa loo furo. oo sideedababa markaa qofku ilaahay barya addoonku in adduunyadaba lagu siiyo wixii uu doonayey, wa imaa in dembiga looga baabi'iyo, dembiga looga tirtiro, wa imaa in aakhiro loogu kaydiyo. mid unbaa dhacayso. xadiidka abu saciid alkhudri uu warinaya, nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, maa min muslimin yadcuu bidacwatin laysa fiiha ihmun. ma jiro qof muslima oo alla bariya tuugmo iyo baryo la imaanaya aan dembi dhexdeeda ahayn, walaa qadiicatu raximin qaraabogoyn aysan ku jirin, ilaa hadduu jiraba ilaahay saddex mid buu siiyaa. imaa an yucajila lahu dacwatah, tuugmadii iyo shayguu rabay laftiisa in adduunka loogu dedejiyo, wa imaa an yaddakhira lahu inuu gadaal ugu kaydiyo, wa imaa an yakufa canhu min asuu'i bimidlihaa, in ducadaa wax la midoo balaayo kusoo socotay iyo musiibo looga difaaco. markaa waxay dhaheen saxaabadii, idan nukhira yaa rasuula allah, waanu badinaynaa marba hadday saa tahay ducada. kaa nebiguna wuxuu yidhi allahu akthar, ilaahay baa badnaan badanoo haddaad badisaan ducada rabbina wuxuu idin siinayaa ka sii badan. waxyaalaha ducada in la aqbalo diida waxaa ka mid ah oo mancinaya aqbalaadii iyo ajiibidii qofku inuu cuno xaaraam, aklul xaraam, xaaraan cunid. waa xusuusannahay xadiidkii nebigu sala allahu calayhi wasalam ninka uu kaga sheekeeyey safarka dheeraynaya, ninkii basaasaysnaa, ninkii booraysnaa, ninkii gacnaha cirka u taagayey ee lahaa yaa rabbi yaa rab, wa madcamuhu xaraamun wa mashrabuhu xaraamun wa malbasuhu xaraam. ninkaasoo wuxuu quutay, wuxuu cabayey, u xiran yahay bay xaaraan ahaayeen oo xaaraan lagu barbaariyey oo lagu dheefiyey. fa annaa yustajaabu lahu baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam, kaasee baa loo aqbalayaa, see loo ajiibaya. markaa dadka yidhaahda waan ilaahay baan bariyey, waa bariyey oo layma aqbalin, wixii aan rabay ma helin, hadalkaasi waa dannun faasidun wa ictiqaadun khaadi, waa male xun, waa caqiido liidata, looma baahna. markastaaba qofka mu'minka ah oo si wanaagsan ilaahay u tuugay waxa weeyaan arrimaha mid unbaa la siinayaa. inuu degdegsadana maaha. aadaabta waxaa ka mid ah waa inaan qofku ducada iyo allabariga degdegsan. nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam,
qofka degdegsadaade waa inuu yiraahdo qad dacawtu rabbii falam yustajab lii ilaahay waa bariyay laymana ajiibin qofka sidaa yiraahdo waa qofka degdegsada wey mar hadduu degdegsado oo yiraahdo wixii waa waayay markaa ducadii iska daayo markaa kaa weeye kaa looma baahna kaas waa khasaar markaas tartiib inuu u ducaysto ducada hoos u dhigo ilaahay tuuga subxaanahu wa tacaala codka hoos u dhigo waxa uu ilaahay weydiisanayana ay yihiin wax aan markaa mustaxiil ahayn hadduu hadda maalan ambiyada ilaahay darajo ay khaas la yihiin oo kale ilaahay uu weydiiso dhaho darajadaas isii oo kale wax ilaahay nebiyada mid ka mid a ama ambiyadaba ku khasisay ma aha inuu taasoo kale uu weydiisto waa inuu magaranaysaa ilaahay ka dalbo subxaanahu wa tacaala waxyaalaha uu u baahan yahay oo ilaahayna waa siinayaa markaas subxaanahu wa tacaala waa waxaa ka mid a ducada aadaabteeda in uusan qofku isku mashaqaynin erayo ama alfaad uu isku aadaadinayo oo markaa isku duuduwayo ee ilaahay si caadiya ayuu u tuugayaa luqaduu rabo iyo codkuu rabo iyo carabkuu yaqaan buu ilaahay ku baryanayaa subxaanahu wa tacaala udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin waxaa loo baahan yahaa markaas inuusan kuwa noqon muctadiinta ah oo xadgudubka sameeya baaraka allaahu fiikum waxyaalaha ilaahay weydiisanayo subxaanahu wa tacaala wax kastoo u baahan yahay ilaahay buu baryanaya liyas'al axadukum baa nebigu yihi sala allahu calay wasalam rabbah xaajata axadkiin rabbigiin dantiisa ha weydiisto dhammaanteed xawaa'ijtaada iyo danahaadoo kale dhammaantood xataa shis'a naclih idanqadac xataa kabta sunkeeda markuu ka go-o wax kasta wax yar iyo wax weynba waa inuu ilaahay weydiisto subxaanahu wa tacaala marka adducaau huwa alcibaada weeyaan ducadu waa cibaado adducaau mukhu lcibaada ducadu waxa weeyaan cibaadada dhuuxeedi weeyaan laysa shayun akrama cala allahi tacaala min adducaa nebigu sala allahu calayh wasalam shay ilaahay ducada uu ka jecel yahay ma jidho markaas qofkii ilaahay baryadiisa ka tagana dee ilaahay waaba u caroonaya ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u caroonayaa raalli kama aha oo khalqiga iyo binu aadamku baryada iyo tuugmada iyo wax isweydiisiga isku nacaan ilaahayna waxaa weeye addoonkiisa wuxuu ku jeclaadaa baryada iyo tuugmada iyo isaga inuu wax weydiisto subxaanahu wa tacaala wax kastoo u baahan yahay adduun iyo aakhiraba inuu ilaahay weydiisto subxaanahu wa tacaala markaas waa albaab furan siyamaa bishaan ramadaan oo sharafta badan iyada waxa weeyaan waaba in aada looga faa'iidaysto ducada waxaa lala eegtaa al awqaat ashariifa waqtiyada sharafta lo fiican ka yowmi carafa wa shahri ramadaan sida maalinka carafa sida bisha ramadaan oo dhan wa yowmi aljumuca sida maalinka jumcada ah wa leylatii sida hameenka jumcada ah wa waqti saxar sida waqtiga hore oo hiraabta ah ama aroorta hore iyo aakhira leylka hameenka ma garanaysaa aakhirkiisa dambe arrimahaasoo dhan ayaa ducada lala eegtaa oo ay aada iyo aad ay u fiican tahay inuu qofku ugu dadaalo ducada ilaahay tuugmadiisa iyo allabariga iyo baryada rabbina inuu badiyo markaa waxa weeyaan saddex aan ducadooda la aqbalin waxaa la tilmaamay inuu ka mid yahay qofka aklulxaraam ama qofka xaaraanta cuna aakilulxaraam waxaa ka mid ay dhaheen mukthirulghiiba qofka xanta badiya oo dadka intaa hilibkooda cuna oo xanta badan waxaa ka mid a baa layidhi qofka qalbigiisa xiqdi ama xasad ama xume ugu haya dadka muslimiinta ah ilaahay baa addoommadiisa abuurtay isagaa og midka wax ka aqbalayo isagaa og mid kasta martabadiisa iyo derajadiisa waxa weye xaasid ha noqonin maxaa yeeley alxasadu oo muslimiinta ha xasdin alxasadu yaakulu lxasanaat xasadku wuxuu cunayaa xasanaadkii qofka kamaa taakulu nnaaru lxadab sida macnaha naartuba ay dabku uu xaabada u cuno marka laa taxasad weeye haysxasdinina waxaa loo baahan yaha markaa inaad muslimiinta qalbiga aada u waasicisid wanaag iyo khayr inaad ugu haysid
aadaabta ducada waxaa ka mid ah sida aynu sheegnay waqtiyadaas iyo amaakinta wanaagsan inuu la fiirsado labo axwaasha wanaagsan fii sabiilillaahi qofku markuu ku taagan yahay marka roobku da-ayo ducada waa la aqbalaa salaada safka marka loo istaago waa la aqbalaa salaada marka laga baxo waa la aqbalaa aadaanka iyo aqimka dhexdooda waa la aqbalaa wasaa'im waqta fidrih qofka sooman markuu afurayana ducada iyana waa la aqbalaa taasna waa tan labaad aadaabta saddexaad waxaa ka mid ah inuu xagga qiblada hadday suurtagal u tahay inuu la qaabilo jihaadka dhanka ugu fiican xagga qiblada ama kacbadaba hadduu joogo inuu qaabilo waxaa afar ah inuu codka hoos u dhigo intuu awoodo oo si aadaab leh oo markaas ilaahay u tuugo subxaanahu wa tacaala ilaahay haddaa kor u qaadid iyo haddaa hoos u maqashidba isku si weeye agtiisa ducada waxaa ka mid ah aadaabteeda inuusan qofku alfaad iyo ereyo isku aadisa oo dhibaya ousan ducada isku kallifin waxaa fiican inuu ducada soo aroordhay ku ducayso waxaa ka mid ah aadaabta oo midka lixaad noqonaya inuu qofku qalbigiisa khushuuc iyo xuduur markuu ducaysanayo inuu soo xaadiriyo sababtoo ah idcuu rabbakum tadarucan wakhiifa waxaa ka mid ah aadaabta kan toddobaadna noqonaya inuu qofku caqiideeyo go-naan in la aqbalayo inuu macnaha go-aansado oo uusan shaki ka qabin ma lagu aqbalaya ama lagu aqbali waaya looma baahna taasna looma baahna qalbigiisu waa inuusan laahi ahayn oo qof qalbigiisu qaafil laahiya waxba lagama aqbalayo waa inuu qofku ducada gooyo allaahuma qfir lii in shi'ta inuu dhaho lama rabo ilaahayow haddaa rabti ii dhaaf allaahuma arxamnii in shi'ta haddaa rabti ii naxariiso looma baahna waa inuu macnaha ilaahay tuugo wahuwa muuqinun bilijaaba isagoo ajiibidii yaqiininaya waxaa sideed noqonaya ducada inuu ku celceliyo ilaahay ku celceliyo ilxaax ku badiyo sagaal waxaa noqonaya inuu ducada ku bilowdo xamdiga ilaahay salliga nabiga sala allahu calayh wasalam ilaahay ka bacdi dantiisa weydiiso ka bacdina ku khatimo xamdiga ilaahay iyo salliga sidaasaa ilaahay ku aqbalaa waxaa ka mid ah inuu macaasida qofka ilaahay tuugayo macaasida inuu iska ilaaliyo toobad keeno ilaahay isku dhiibo markaa ilaahay tuugo subxaanahu wa tacaala taasina waa ka mid baaraka allahu fiikum marka ducadu cajabtaasay leedahay way fadli badan tahay ilaahayna aan isku xirno waqtigan shariifka oo cajabta badanna waa inaan aad iyo aad uga faa'iidaysano laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min alaalimiin iyadana qofkii ku ducaysa waa la aqbalaa aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi caza wajalla wahuwa saajid markuu qofku ilaahay ugu dhowaanshaha badan yahana waa markuu sujuudsan yahay fa akhiru ducaa ducada badiya sujuudda dhexdeeda iyadana ducadii waa in la badiyo xilligaa dambe habeenkii uludka dambe oo habeenkiina ilaahay wuxuu leeyahay man yadcuunii faastajiiba lah yaa i baryayo aan ajiibaa man yas'alunii faacdiyahu yaa i su-aalanayo aan siiya man yastakfirunii faakfira lah yaa iga istikfaar dalbaya oo aan markaa u dhaafaa markaas arrimahaasna waa arrimo muhiima weeyaan waa inaan ducada badino baaraka allahu fiikum ilaahayna hayna ka aqbalo bishaan cibaadaadka iyo khayrka iyo soonka iyo salaada iyo sadaqada iyo dhammaan ducada muslimiinta dhammaantoodna allaha ka aqbalo farajna ilaahay ha u furo muslimiinta dhammaan qof kasta oo mu'mina oo muslima oo dhibaato haysana dhibaatada ilaahay ha ka dulqaado sidaasaan kusoo koobaynaa baaraka allahu fiikum khayrkana ha la badiyo hana la faafiyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh